munaasabad lacagta magdhowda ah lagu wareejinayay hay-adda Sodma oo Soomaaliya wakiil uga ah barnaamijkan caymiska la xiriira kana timid hay-adda nidaamka caymiska ee Afrika ee loo soo gaabiyo ARC ayaa waxaa ka qayb galay wafdi ka socda baarlamaanka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya oo kala matalayay guddiga maaliyadda, guddiga arrimaha gudaha ee baarlamaanka, guddiga beeraha, Danjire Jibriil Ibraahim Cabdulle, danjiraha dowladda Soomaaliya ee dalka Kenya, agaasimaha guud ee wasaaradda maaliyadda, madaxda hay-adda Sodma, wakiilo ka socday hay-adaha caalamiga ah Start Network oo shaqo wadaag la ah Sodma, IGAD iyo xubno kale. Shirkan oo ah mid loogu gogol xaarayo yaglilidda qorshe lagu yareynayo khatarta abaarta ee haatan ka jirta Soomaaliya oo ay wadajir u soo qabanqaabiyeen hay-adda Sodma iyo hay-adda ARC isla markaana socday muddo 5 cisho ah ayaa ujeedkiisu yahay in lacagta lagu maareeyo ku dhawaad 50,000 oo qof oo ay saameeyeen abaarta ku dhufatay dalkeena. Gudoomiyaha hay-adda Sodma Maxamuud Macalin Cabdulle ayaa sheegay in 85% wax soo saarkii dalagyada uu baaba'ay lacagtana lagu caawin doono bulshada nugul. Soomaaliya in ka badan 85% productive-keeda ayaa runtii ku baaba'ay abaaraha. dadka oo runtii ay waxay baday cunno la'aan waxaan marka runtii maanta halkan u joognaa inaan la wareegno dhaqaalo ay ummadda Soomaaliyeed ay ka dalbatay magdhow ahaan u dalbatay taasoo runtii dowladda Soomaaliya ay la wareegayso lacag ku dhow 1,500,000 iyo Start Network oo runtii wada shaqayn naga dhaxayso idana 700 lacag ka badan kula wareegayso taasoo loogu talagalay in lagu gaaro dad Soomaaliyeed dadka ugu liito oo runtii gobolada dalka ku sugan kuwaasoo runtii gaarayo dadka aan gaari doono oo runtii gaari karo ilaa iyo 50,000 oo dad ah taasoo la rabo in laga bixiyo dadkaasi inaysan dareemin abaarta iyo gaajada runtii aan ilaahayna hanaga haye ku soo socoto. agaasimaha guud ee wasaaradda maaliyadda Soomaaliya Dr. Suleymaan Sheekh Cumar ayaa xusay in barnaamijkan uu wax badan ka bedeli doono abaarta soo noqnoqotay. marka waxaan halkan rabaa inaan ku soo gabagabeeyo in ay ahayd bilow wanaagsan aanu la soo wareegnay jeeg ay ku qoran tahay lacag dhan $1,455,730 taasoo ah qayb ka mid ah caymis aanu hore u gadanay oo runtii loogu talagalay inuu si degdega marka u horeysaba ay noqoto bilowga hawsha bilowga waxa xigi doona buyout wax la yiraahdo oo runtii malaayiin gaari doona haddii alla idmo waxaan rajaynaynaa sida wadamada kale qaarkood mararka qaarkood in lacagan 20 milyan ka yarayn inaan ka heli doono haddii alla idmo buyoutka inkastoo ay ku xidhan tahay nooca ay khatartu tahay iyo nooca caymiska ah ee ay wadankaasi uu ku jiray uu leeyahay aad baa u mahadsantihiin. xildhibaan Maxamed Haaruun oo ku hadlayay magaca xildhibaanada ayaa xusay in tani ay tahay talaabo wanaagsan oo lagu gurmanayo shacbiga Soomaaliyeed. marka warbixintaas ay xildhibaanada sidii runtii si qoto dheer ay u dhugteen si hay'adaas maaragtay waxyaabaha ay qabatay ahay in maaragtay intaan maaragtay dhibaato dhicin la sii qorsheeyo laga sii hortago isla markaana loo sii diyaar garoobo. runtii hay'adaas Soomaaliya way qayb ka noqotay heshiiska way saxiixday laakiin waxa u dhiman heshiiska inuu baarlamaanku ansixiyo. marka xildhibaanada waxa la tusay muhiimadda uu leeyahay ka mid noqoshada hay'adan si loola tacaalo dhibaatooyinka inooga iman kara isbeddelka cimilada isla markaana inay qaybtooda ka qaataan sidii baarlamaan weynaha ay ka midka yihiin runtii ay uga maaragtay gadi lahaayeen ama ay uga maaragtay ololeyn lahaayeen in heshiiskaas muhiimka u ah dadkeena nugul in maaragtay la kaalmeeyo aynu ka mid noqono maxay ahaydey wadamada Afrika ee ku bahoobay hay'adda Africa Risk Capacity si aynu heshiiska u dhameystirno waa in maaragtay aynu baarlamaanka ansixiyo marka intaas runtii ku saabsanaa. Zakariya Axmed Muuse, TV-ga Shabeelle, Muqdisho.